waxa uu u soo gogol fadhiistay doonayana inuu gabaati ka bixiyo gabadh Soomaaliyeed oo xiddig ka ahayd fankii Soomaaliya eebad iyo quruxna joog iyo jamaal eeba ku maneystay. waxa uu si gacaltooyo ah gacanta ugu dhiibay madaxweynihii kolka xilka Soomaaliya hayay ee Maxamed Siyaad, isaga oo doonayay in loo gelbiyo aroos gingimo loo dhigo qasri ku yaala Bangiina loo geeyo. kusoo dhawaada daawadayaal qiso aad iyo aad u xiiso badan. waxa uu madaxweyne ka ahaa wadan ku yaala Afrikada Dhexe ee ku dangiga webiga loo yaqaano Ubangi. waxa uu ahaa kaligii taliye dictator dhiigacab ah oo shacabkiisa iyo dadkiisa kumaaday. waxa uu isku magacaabay boqor aana dhicin oo weligiis talinaya. waxa uu jacayl cajiib ah oo lixaad leh u qaaday inan Soomaaliyeed oo fanaanad ahayd. maanta qiso cajiib ah oo ku saabsan ayaanu idinkaaga sheekayn doonaa jacaylkaas oo u qaaday gabadhii fanka Soomaaliyeed codka tolmoon lahayd ee ka dhex tilmaaneed. naftayda waan ku huri lahaa hantiina ka bixin lahaa hagarku maquurin halistaad igoysiyo halkaad igaga taali. casha sharafeed loo sameeyey madaxdii ka qaybgalaysa shirkii midowga Afrika Muqdisho ka dhacay sanadkii 1974 ayaa habeenkaasi showga maada iyo madadaalada iyo heesaha halkaasi ka soo tabinayeen fanaaniintii Soomaaliyeed. qayb ka mid ah madaxweynihii waalnaa iyo dictatorkii dhigacabka ahaa ee Afrikada Dhexe Jean Bedel Bokassa ayaa isagu waxa uu habeenkaasi halkaasi ka tilmaamsaday gabdhihii tolmoona ee fanka tabinayay habeenkaasi gabadh ka mid ah. jacayl lixaad leh ayuu u qaaday isagoo jacaylkaasi jugta wadnaha gaadhsiiyay. raggayo haweenkuba midna haybad ma yeesheen ka kaluun lahaynini. gabadhii uu tilmaamsaday ee habeenkaasi cashada iyo casuumadda uu ka cuni waayay waxay ahayd fanaanadeena weyn ee Khadiija Maxamuud Yuusuf Khadiija Qalanjo. isla subaxii waxa uu ku soo kalahay ama uu ku soo jarmaaday madaxweynihii kolka xilka Soomaaliya hayay ee Maxamed Siyaad Barre, isagoo si gacaltooyo ah gacanta ugu dhiibtay weydiisanay in gabadhaasi loo guuriyo aroos gingimo loo dhigo Bangiina loo gelbiyo. madaxweyne Maxamed Siyaad ayaa isagu ugu jawaab celiyay inuu fanaanada la hadli doono haddii ay doonayso inay noqoto marwo madaxweyne. Maxamed Siyaad ayaa arintii waxa uu kala hadlay Khadiija Qalanjo, tiyo ugu jawaab celisay madaxweynaha iyadoon tashi tusaaleen iyo weliba talo cidna aana u doonanin. habeen kaliya caashaqooyay mahir galo ayee kuma fuulaaye horta baro. habeen kaliya caashaqooyay mahir galo ayee kuma fuulaaye horta baro. waxa ay fanaanada madaxweynaha u sheegtay in aysan dooneynin inay noqoto marwo madaxweyne iyo boqorad toona, ayna door bidayso wiil Soomaaliyeed oo aan waxba haysan hantida adduun ee Jean Bedel Bokassa uu wado. Jean Bedel Bokassa wuxuu u hanqaltaagayay meelo aanan la hubin horseedna wadanin toona. halabuurkii weynaa ee Maxamed Cali Kaariye dhakhtarkii jacaylka ayaa isagu riwaayad ka sameeyay qisadaasi jacayl ee Jean Bedel Bokassa oo u qaaday fanaanadeena Khadiija Maxamuud Yuusuf Khadiija Qalanjo. on horseed looma haadsho way hawiranta qaabeeyay haki caashaqa ayu habaabine. riwaayadii caanka ahayd ee sidaa ma isku qabnaa mise waan qasanaa. madaxweynihii dhigacabka ahaa dictatorkii dadkiisa laayay ee Jean Bedel Bokassa ayaa isagoo ceeb la hagoogan ka huleelay magaalada Muqdisho. jab iyo ceebna ay ka raacday.
jacaylkaas uu qaaday fanaanada. Bangi ayuu tegay isagoo ka qoomameynaya jacaylkii ay ku diiday gabadhaasi fanaanada Soomaaliyeed ee qiimaha iyo qaayaha leh ee Khadiija Maxamuud Yuusuf, Khadiija Qalanjo. intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal qisadaasi cajiibka ah ee madaxweynihii waalna u qaaday fanaanada Khadiija Qalanjo. qiso kale oo tan ka qiimo badan ama ka xiiso badan ayaa idiin soo gudbin doonaa ee ha moogaanina channelkana subscribe-ka iyo like-ta ha ka iloobin. dib dambe intaynu u kulmi doono nabaadiina nooli kulante iyo amaana Allah. jacaylka waan kula habaylaahila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafin adigu haraad qaba habeen kama siixdeen jacaylka waan kula habaylaahila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafin adigu haraad qaba habeen kama siixdeen